sabaankii xumaadaa dad buu sano ku reebaaye kuwa sanada uu ku reebaya ha noqonnina ogaysiinayna reer miyiga markaanu nahay horta annagu raacataannu raacatada waxaanu nahay dawladda Soomaalilayna haddii adduunyadu ka baaqo dee waax baa degaysa iyadoo ay soo tarayso dhawaaqa ka imanaya dadka reer guuraaga ee ay abaarta xooggan saameysay isla markaasina ku soo xarooday deegaanada ku teedsan gobolka Togdheer halkani waa degmada Qoryaale oo ka tirsan gobolka Togdheer taasoo ay saameysay amaar baaxad weyn isla markaasina ay ku soo qaxeen dadka xoolaha ay ka madheen ee ku noolaa dhulka miyiga ah dadkan ayaa dhamaantood waxay wataan wax yar oo xoolaa isla markaasina ay abaartu saameysay intan xoolaha ayaa gabi ahaanba waxay afka dhulka ka daayeen kadib markii ay waayeen wax ay cunaan iyo wax ay cabaan degmadani Qoryaale ayaa dadku isugu soo biyashooteen halkaas oo ay biciin soo bideen isla markaasina maamulka degmada Qoryaale ayaa waxay ugu deeqeen booyado biyo iyo kaamam ay ku aasan yihiin boco kuwaas oo ay dadku ay halkaasi naftooda ku maareynayaan balse ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah dadkani reer guuraaga ee ku noolaa nolosha miyiga ayaa gabi ahaanba waxa ay si weyn uga soo qaxeen dhulkii ay ku noolaayeen kadib markii ay saameysay abaar daba dheeraatay oo ku dhufatay gobolada bari ee Somaliland tanina waxa ay muujinaysaa abaarta baaxadda weyn ee ka jirta gobolada bariga Somaliland iyo deegaanada ku teedsan gobolka Togdheer dadkan ayaa gabi ahaanba waxay shacabka Somaliland iyo ummadda muslimiinta ugu baaqeen in lala soo gaaro gargaar degdeg ah ما يصير أفرع شمانا رك أولي وقوان كمهنا باي تذكي ميلا لا ميلو بيا طب كرر ماي سعون ما يحور وقت جاي السوري وين ميل بيله لبعض الضوابط أيه واحد يكون وراين أفر بيود ولا قصر شوي لو قصر شوي كاب كان أنت يلا قاعدين وما دعميو حولنا ما يفسني waxaan nahay dad meel imanka iska jooga xoolina badankooda way baqteen waxa noolna waa kuwa arki doontaan oo waxba lama noola iminkana waxaan ugu xun haraad iyo gaas marka hadii dawladda waxaan ka codsanaynaa amase dawladda waxaan ka codsanaynaa hadii gurmad biyano u keenay baadana u keenay baqti baano in wax naloo keeno inuu la soo dadaan qiifo xoolihi waa xayees waa kuwa arkaysaan waxa weeye afar bood horan waa nala siiyay waan ku xamdinaqaynaa maantana waxaan u baahannahay gurmad culus xoolaha iyaga iyo dadka iyaga waa wax nafli ma joogaan ma sii noolnoola habeen walbana disaasay baqtiyaya sabaxin waxa dareeray soo xaroodaan dul taagtaagan codsanayadoo mahadsan ummadeedina u shaqeynayso u socota waxaan ka codsanaynaa biyo iyo baad wixii dadka duuyo waa taas dadka lagu noolayn lahaa halka kaamka nooga qoday la noo biyay noogu keeno biyo loogu keeno meel waro tan haysa hawsheedan baan ka warabaynaa tantan haysa hawsheeda haraad iyo gaajo iyo xayeeskiyo meel lagu dhaqaaqo waaye intaba waa qabnaa ay oo baaq ku diraynaa dadka biyo iyo baadba waa lagu tacabsan yahay halala soo gaaro biyo iyo baadba saasaan dawladda iyo shacabka baleena madaxda Qoryaalaana urursado meesha suuqaya keentay oo horeysay waa ku mahadsan hadday suuqaya keenay waxba nooma heenayo khayr weeyaan timirtar kullu wariyaa meeshaaraad baan ugu baqtino dabeedna imika baad yaro halka dhiban ku shubtay aan ku dugnay marka hore ilaahay waxaan ka baryeynaa ilaahay baa isagu deeq leh oo deeqdiisu gaadhay ilaahay waxaan ka baryeynaa marka hore Bila Jaamac waa gudoomiyaha degmada Qoryaale oo halkaasi ka hadlay isla markaasina sheegay abaartan iyo baaxadda ay leedahay iyo sida ay ula tacaalayaan dadkan weeye baaq dawladda Somaliland ganacsatada dadka islaamka waa baaq aanu u soo dirayno oo aanu ku ogeysiinayno dhibaatada dadka jilicsan ee gayigan ku nool aanu ku ogeysiinayno dadkan waa dadkii qaarna markii hore deganaayeen qaarna ay ka soo noqdeen hawd markii hore waqooyi dadkii deganaa ee hawd noo dhaafay ee xuduudda tagay oo soo noqday oo markay dhulkan marayeen socon kari waayay labada qore isugu jiraan waxaanu leenahay ha loo soo gurmado waxqabadkii hore iyo biyihii hore iyo raashinkii horena ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa idina waanu idinku mahadnaqaynaa si wanaagsan baa loo dhuuyay
biyo iyo baadba wixii loo helayay waa la siiyey. gudoomiye ku-xigeenka degmada Qoryaale Xasan Caydiid ayaa isaguna sheegay in lagu guuldaraystay in degmada Qoryaale laga soo saaro biyo tiraba 2 jeer la isku dayay balse taasi aanay suuro gelin. isla markaasina waxa uu fariin u diray dawladda Somaliland. mudane madaxweyne anagoo kaaga mahad celinayna dadaalkaagii hore ee degmada Qoryaale aad u gasheen in biyo laga helo waa lagu guuldaraystay. maanta waxaanu ka codsanay mudane madaxweyne iyadoo laga duulaya xaaladda jirtay abaareed in mar dambe na loogu deeqo in ceel biyood oo sahankiisa leh oo magaranaysaay aqoontiisa leh na looga soo saaro degmada Qoryaale. balse waxa muuqanaysa abaarta ka jirta deegaanadani iyo baaxadda ay leedahay. balse dadku waa qaar aan mar qura iyagu ka quusan raxmaadka Eebbe oo markasta sugaya in Alla u soo naxariisto. dadka ayaa abaartani ay saameysay waxa ay keentay in ay waayaan waxay naftooda u cunaan. dhammaanba waxaad arkaysaa baktiga oo isagu teedsan wadooyinka hareerahooda isla markaasina habeen walba xerada ay goosan ku hadhayo aydana uu goosani ku hadhayo. baktiga ayaa gebi ahaanba buux dhaafiyay deegaanada dadkan ay degan yihiin. Khalid Cabdikariin Xaaji, shabakada caalamiga ee Jaraad News, Burco.